wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cumar Axmed Aadan Saandheere ayaa waxa uu kulan la yeeshay iskaashatooyinka beeraha degmada Wanlaweyn. Kulankan oo ah mid iskaashatooyinka codsi ugu dirsanayaan wasaaradda waraabka iyo beeraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo tan federaalka iskaashatooyinka oo ka kooban 8 iskaashato oo beeraley ah oo kala ah Al-Aamin, Tawakkal, Tawfiiq, Liibaan, Al-Nuur, Al-Usmaan, Al-Falaax iyo Xariirow. iskaashatada ayaa cabashadooda u bandhigay wasiirka si loo meel mariyo loona gaarsiiyo wasaaradaha ku shaqada. kulankan ayaa imaanaya xilli la joogo tabcashada beeraha waxaana ugu horeyn goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada Wanlaweyn Maxamed Nuur wuxuuna yiri mudane wasiir annaga waxaan nahay 8 iskaashato oo beeraley ah oo ka dhisan degmada Wanlaweyn iskaashatooyinkaas 8 ah waxa weeyaan Al-Aamin Tawfiiq Tawakkal Liibaan Al-Nuur Doonka Al-Usmaan intaasoo iskaashato ayaan ka koobannahay oo 8 iskaashato ah 8 iskaashato ilaa heer qaran oo sida uqib iyo udhis waan ka diiwaan gashannahay 8 iskaashato oo degmada ka dhisan tahay oo la magac baxay waan midownay inta 8 iskaashato waxaan la baxnay magac la yiraahdo Durdur oo aniga aan gudoomiyaheeda ahay ee degmada waxaan codsanaynaa wax qabad oo dhinaca beeraha xilliga beeraha oo yaani laga shaqeynay ayaa la joogaa in hay'adaha iyo meelihii khuseeya in aad nagu caawiso oo aad noo dhex gasho oo macnaha wixii oo kaalmo ah ina macnaha beeraha sida beeraha loo waxay sida macnaha waxyaabo badan tasiilaad badan ayaan macnaha u baahannahay oo beeraha xagooda ah tasiilaadkaas si aad noo caawiso meel alle meeshii macnaha adiga aad noo geli karto waa wasiirka koowaad oo anaga nasiib aan u yeelano hadda wasiirka beeraha iyo koonfur galbeed lama joogo waa u baahneen in degmada ay nagu soo booqdaan wasiiradaha macnaha khuseeya arrimaha beeraha laakiin nasiib waxaan u yeelanay wasiirka badda iyo dekedaha inaan macnaha aan la kulanno maanta wasiirkeeni dekedaha iyo badda Cumar Axmed Enow oo maanta Ilaahay nala kulan siiyay oo Ilaahayna waafajiyay wasiirkan oo noo yimid aan qabno dhibka aan qabno iyo waxaan qabno inaan u sheegano aan dareemayno inuu waxna nooga qaban karo haddii alla idmo waxaan rabnaa jaalle wasiir haddii Ilaahay yiraahdo oo lagu jiro religii beeraha oo wax laga qaban lahay dhanka abuuradka cagafta iyo geedqaadka baldoosarada intaasaan u baahannahay in aad wax nooga qabatid meel alaal meeshaad noo geli kartid hay'adaha localka iyo samafalka in wax nooga qabatid ayaan u baahannahay intaasaan ka codsanaynaa kullayba annaga intana waan isku raacsannahay haddii Ilaahay yiraahdo waad salaamantahay waxaana ugu dambeyn goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda koonfur galbeed Soomaaliya wuxuuna wasaaradda beeraha ugu baaqay inay ka warqabaan beeraleyda degmada Wanlaweyn sidoo kale wuxuu hay'adaha ugu baaqay inay garab istaagaan oo ay caawiyaan beeraleyda degmada maadaama ay ka qayb qaataan wax soo saarka dalka bariyaha waxaan ku jira nabadeyn laakiin maanta waxaan umaleysanayaa xoogaa hal tilaabo qaadno horumarkii magaalada aan ka jirin soo dhawaada waa maasantiin in magaalada waxaa ka jirto dallad iskaashatooyin beeraley oo magaceeda la Durdur dalladdu waxay ka kooban tahay 8 iskaashato oo u qaybsan deegaanka waa maasantiin iskaashatooyin in la sameeyo waa loo baahan yahay adinkana waxaa laga rabaa kaliya inaad soo bartaan si wax lagu qabto shuruud ugu horeysa waxay tahay horta koonfur galbeed in idinka ogaada loo baahan yahay oo registration aad ka sameysaan markii koonfur galbeed registration laga sameeyo federaalka loo gudbi karaa sababtoo maanta waddanka federaal waaye wixii wasaaradda beeraha ay qaranka ay hesho waxay soo aadinayaan maamul goboleedka marka wuxuu idinkaga baahan yahay idinka laftiina inaad registraysaan oo processkii amartaan wasiirkana waxaan ka codsanaynaa asigana muxuu ahaa ii sheeg dadkan waa dadkii deegaanka beeraleyda ahaa magaalada Wanlaweyn magaalo wax soo saar waaye wasaaradda beeraha koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa inay magaalada sida ugu dhaqsaha badan u timaado oo ay kormeer ku samayso dalagyada beeraha iskaashatooyinkii beeraha waa dhisan yihiin ilaa hadda laakiin sidii loo abuuray wax qabada ma helin saacadan wixii ka dambeeyay wasaaradda beeraha koonfur galbeed waxaan ka dalbanaynaa
inay waxqabad buuxda ka samayso degmada Wallaweyn oo waxay u helaan qaybaha kale gobolada kale waxay helaan shabeellada hoose qaybta kale in ayagana waxooda ka helaan ayagana waxaa looga baahan yahay inay soo dhameeyaan registrationkii iyo shuruudihii sidoo kale waxaan rabnaa dhammaan hay-adaha caawiya iskaashatooyinka beeraleyda inay degmada Wallaweyn imaadaan oo ay la shaqeeyaan iskaashatooyin weyn oo ku yaal magaalo wax soo saar waaye inay waxqabadkooda meeshaan keenaan oo leenahay saa darteed baaqaasaan gudbinaynaa wixii sharciyaan dhiman waa soo buuxinaynaa marka hadda ka bacdi waxaan diyaar karnaa wasaaradda koonfur galbeed inay si toos uga shaqeyso degmada Wallaweyn. Cabdiqani Maxamed Xasan, warbaahinta koonfur galbeed Wallaweyn.